wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland ayaa magaalada Burco ku qabatay barnaamijka shirka shaqo abuurka gobolka Togdheer waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo sidoo kale maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ugu horeeyna shirka waxa daafray siduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer aynu ka hadli doonaa maxaa aynu halkaynu gaadhay halkaynu u soconay maxaa inoo haray maxaa inoo qabsoomay ayaynu ogaan doonaa malaha ay ugu yara xoog roon tahay shirkadaas la yiraahdo Telesom iyo kuwa la midka magaalada jooga dhalinyarada soo socota sida markaa shaqada ay hada jeer u shaqo galiyaan oo waliba aan isleeyahay waa si aan oran karo waxa weeye waa si transparency say wax ku qaata marka hore runtii waxaan gobolka ku soo dhaweynaynaa wasiir Hinda oo ah wasiirka shaqada gelinta runtiina aha wasiir aad ugu firfircoon shaqada runtiina intii ay joogtay wasaaradda muujisay dadaal aad iyo aad u fara badan barnaamijkan maanta oo ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa shaqo gelinta oo loo baahan yahay in cid kastaba fikirkeeda ay soo bandhigto oo sanadkiiba mar ay wasaaraddu qabato faahfaahinteedana ay nasiin doonto wasiirku waa soo dhaweynaynaa ugu dambeyn shirkani waxa soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland marweyhinta jaamac xirsi gaani hadiyo gooraale shacbiga gobolada barigu waxay ku cawdaan ma soo dhaafto hargeysa xukuumaddu wax walba hargeysuun baa laga qabtaa sida la ajligeed mar haddii aanu ka qabanay sanadka iyagii koobaad ee 2018 ee shaqo abuurka gobolka Togdheer magaala madaxdiisa Burco oo ah caasimadii labaad ee qaranka Somaliland ahna hooyadii Somaliland siino baahiyaad kasta oo ay bulshadu qabto wax kasta oo mas'uuliyadda nasaaran ay nafarayso ilaa min badan ilaa iyo misayla maantana tiibay ka mid tahay jideeyay inay ka mas'uul noqoto ilaaliso abuurto وعبد الغني عبد الله محمد عبد الغني بافو ورك تلفزيون كارتين مقالة برعو